mar walba waa inaad digtoonaataa baasaboorkaaga waraaqahaaga iyo calaamadahaaga cidna ha siinin waxaad arkaysaa ku Soomaaliya aragnay Ingiriiska ku aragnay nin baa yimid wuxuu ka yimid wadankii ilkahamood maaragtay doonay inuu lacagtiisa ku samaysto mid baa wuxuu ku yiri magacayga aad ku samaysanaysaa magacayga ayaad ku samaysanaysaa kii markuu meesha tagay magaciisu dhiibay ilkihii baa loo sameeyay wixii baa loo geliyay wixii baa loo juqeeyay waxa loo diiwaan geliyay ilaa ninka kalena dhiig baa laga qaadiyay inuu qabo markaa wadna xanuun macaan waayo ninkii ka yimid wadanka ayaa wuxuu qabay wadna xanuun macaan cagaarshow intaasuu qabay laakiin muxuu dhiibay baasaboorkii iyo sawirkiisii iyo waxaan waa qof kale waa adiga on baasaboorkayga iyo sawirkayga iyo calaamadahayga iyo laysankayga ku ila orodoo ku shaqo tag marka qofka dambiilaha waa aniga adiga ma aha markaa ninkii odaygaha markuu shaqo tagaba xanuunada marka laga baaro waxa la ma shaqeynays maxaa yeelay indhaha cagaarshowga qabtaa war anigu mar ibaara ma qabay may 8 sanadood ka hor waxa lagu baaray halkaas tagtay ilkahaas lagu sameeyay waxa laga baaray cuduradaas intaasna wada qabtaa indha beel baa ku haya baabuurta ma wadi kartid waa laga wada xareeyay wixii baabuur ma laysankiisa waa laga qaaday xayar waxa indhaha ku beelay dib hal ay baar waa laga diiday أهلاً وسهلاً وذا جيل كسر وذا برتمات عبد الله كله يوتيوب كا أنا بحوج مسارنا سياسة دنيا قبيلة دموعته صويا عايدة وحنو أنت بدن حوج صارنا مركين نقطة أرمها برشة دبا ده صورنا يسوي برنامج كنا مدافعي وحن كعب سنة إن هذا شير جريسوه واللي بعد سبسكرايب نا قسم يسوي برنامج كان بالكنا تابعته سيدات معلومات كان رنتي وهشرنتينا آد بعد وقوم حد سنت هاي قد بودا جواشة كوين كيجي أديك برتين لبشيكو كدا عالم كه يوحنا سبب ريدونا لبشيكو كدا على أما قبضتي دتك الصومال هذا يكون وضن كي هالكم قد بودا جا كبلا بشيء كدا على وضن كمريكان كارين ديفيس أو كون وليد وضن كمريكان كاليفورنيا أيام واحد يقول ستين نين كاسو مركب كتلا شيء إن مجلس سرقة waxay u tagtay DMV-ga qaybtan license-ka markay tagtay waxaan doonayaa inaan magaca license-ka aan magacay ninkayga ku bedelo magacii aabahay aan ninkayga ku bedelo kadib markay sidaa waraaqay u xareysay ayaa loo diiday waxa lagu yiri kuma bedeli karno waxaad la xiriirtaa Oklahoma oo ku dhalatay oo muddo 30 sanadoodna ay ku noolay way yaabtay waxay tiri maxaa Oklahoma la iga baahayaan ula xiriiraya Oklahoma على كلكم مقام كرنا لا حرير أوكلاهاما قرية مركي تمد بي وحي وعد أوكلاهاما يدو يابتي مركها قيبت اللايسنس كدر والله أي تلفون ودرتي وحلويري مركي مقعدي كرنت أي شكتي يا بيدي أو وجد أي وحلويري حبكوا مقام كرنا وحد حرفتها بوليس قيبتها قيبتي مركي تلفون ودرتي تري بوليس صدق سنوات لبشني لما تنسنوات بمان دقنين أوكلاهاما يا بوليس كان محاكيني وده مركي بوليس كي أي لحرتي أي وحلوش شيء إن صدق سنوات كهر إن أي هل كان قراب كحدي ويقادون ويدي وقف وين قرابت من حدا يا محيته وحلوش شيء إن مالي لو كرينجري كاسيت كده حسن دي اسكي فيديو كاسيت كي أي كسو كريستي كاسيت $5 كدبنا أين سؤالين ويابتي waxay tiri aniga markaa waxa jiray nin ay markaa isbarteen oo guriga u iman jiray ayaa kaarkeedu ka qaaday video uu ku soo kareeyay isaguna markuu daawaday mucilin gurigiisa u qaatay waa loo rajiis gareeyay lacagtii bay bixin weyday intaas waraaqay maaragtay ninkeedii iyo meel laga waayay waraaqaha meel loo diro kadibna qaybta waxay ku dacweeyeen qayb maxkamadda inta badan ma dacweyn laakiin qaybtan maadaama wax badan laga xaday maxkamadda u gudbeen maxkamaddina waxa loo rajiis gareeyay felony yani qof la raadinayo oo dambiila markaasay baraarugtay 20 sano u dambeeyay shaqad kasta ay dalbato waana professorad wax dhamaysay waa loo diiday waxa ka sii daran markay shaqada bilowdo 2 bilood joogto waa laga eriyaa naga raali haw waxa lagu eriyana loo sheego waxa weeye Mareykanka iyo Yurub markaad gaar ahaan Mareykanka hadii markaad shaqo dalbanayso meel ba laga eegay inaad dambiile tahay halka waxa ugu qoran dambiile la raadinayo marka kuma qorna inay kaaset xaday dambiile u baa qoran la raadinayo qof la raadinayo felony markaas baraarugtay xasuus bay gashay ilaa wixii shaqada la igu diidi jiray ilaa 10kii shaqo la iga eriyay markaan tagaba wax la iga eriyay ilaa meelaha qaar عزومها واوين مركل عزومه ما تحفيسه هو واوين البوليس كملتري جميلها واوين يد الله ما يرى
markaasay baraarugtay. waa 20 sannadood ayay shaqo la'ay. shaqooyin yaryar oo maydhada iyo meelahan library laga shaqeeyo way tagtegi jirtay iyo meelaha business ah, laakiin shaqo weyn habeerato loo diiday. halkaa waxaa ku dhacday inay 30 sannadood waxay soo baranaysay ay ku weyday video cassette ay magaceeda lagu karaystay. andi ugu soo noqda hadaba kuweena 1999 waxaan xasuustaa nin Suuriyaal ah oo saaxiib nahay ayaa wuxuu soo koray tareenkii baa la qabtay, waa la ganaaxay. ganaaxa keliya ma ahayn, ninkii gacanta ayay qabtay ayuu qalin ka jabiyey, qalin meesha yaalay uunu iska tegay. waxaa loo soo diray ganaaxii $50 wuu bixin waayey, 50 kale loo soo diray wuu bixin waayey, lacagtii baa badatay. kadib wadaage waxaa loo register gareeyey oo loo diiwaan geliyey inuu qalin la jabiyey. halkaa waxaa lagu qoray dambiile. ninkii Suuriyan buu ka shaqeeyaa, wuu yimaadaa, baasaboorkiisa Siiriyaanka ayaa markaa waxaa loogu dhufiyaa 2 sano. beri dhaweyto ayuu isiri baasaboorkii bedel oo Norway qaado, oo loo diiday. waxaa lagu yiri 20 sannadood ka hor waxaad samaysay qalin baad jabisay, ganaaxii tareenkana waa socon weyday. waxaa kaloo jiray yar Soomaaliya oo taraagyada waaweyn wadi jiray. 3 mar ayuu wuxuu iska maray meelahan la dhigo calaamadaha, kadibna ganaax baa loo soo diray, ganaaxii buu bixin waayey. kadibna maalmaha ka mid wuxuu la dagaalamay qoladii security ayuu la dagaalamay, dagaal aad u weyn. maalkiinta afkaadana kuwiina waxay u register gareeyeen dambiile lacagtana bixin waayey. 20 sano ilaa hadda la joogo, ilaa waqtigan wax baasaboor ah bayraatay lama siin. maxaa yeelay waraaqihii loo soo dirana kama jawaabeyn, wixii la sameeyna kama jawaabeyn. waxaa loo diiwaan geliyey nin dagaalyahan ah ayaa loo diiwaan geliyey. marka waxaan ka wadaa mar walba waa inaad digtoonaataa baasaboorkaaga, waraaqahaaga iyo calaamadahaaga cidna ha siinin. waxaad arkaysaa ku Soomaaliya aragnay, Ingiriiskana ku aragnay, nin baa yimid, wuxuu ka yimid wadankii ilkahanood maaragtay doonay inuu lacagtiisa ku samaysto. mid baa wuxuu ku yidhi magacaygaad ku samaysanaysaa, magacayga ayaad ku samaysanaysaa. kii markuu meesha tegay magaciisu dhiibay, ilkihii baa loo sameeyey, wixii baa loo geliyey, wixii baa loo juqeeyey, waxaa loo diiwaan geliyey. ilaa ninka kalena dhiig baa laga qaadiyey inuu qabo markaa wadna xanuun, macaan. waayo ninkii ka yimid wadanka ayaa wuxuu qabay wadna xanuun, macaan, cagaarshow, intaasuu qabayba. laakiin muxuu dhiibay baasaboorkii iyo sawirkiisii iyo waxani waa qof kale. waa adiga oon baasaboorkayga iyo sawirkayga iyo calaamadahayga iyo laysankayga ku yidhi orodoo ku shaqo tag. marka qofka dambiilaha waa aniga, adiga ma aha. markaa ninkii odaygaha markuu shaqo tagaba xanuunadu marka laga baaro waxaa la ma shaqaynays, maxaa yeelay indhaha cagaarshoogan qabtaa. war anigu mara ibaara ma qabe may 8 sannadood ka hor waxaa lagu baaray, halkaasaa tagtay, ilkahaasaa lagu sameeyey, waxaa lagaa baaray cuduradaas, intaasna wada qabtaa, indhabeel baa ku haya, baabuurta ma wadi karti, waa laga wada xareeyey. wixii baabuur macay laysankiisi waa laga qaaday. maxaa yeelay waxaa la yidhi indhaha ku beelaya, dib ha la ii baaro, waa laga diiday. waxaa la yidhi dhakhtarkii ku baaray wuxuu ahaa specialist. taa waxaan ka wadaa war qof lacag sii, waxaad awoodid sii, laakiin magacaaga ilaali. beritay kugu soo noqonaysaa. inta qofood eed waxaad arkaysaa wadaaga nin ookiyaalo u baahan oo markaa qof kale uu oranaya anaa kuu gelaya. hadhow adiga waxaa kuu qoran muraayado. hadhow markaad istiraado barnaamijyo kala samee, waxaa lagu leeyahay muraayadaa kuu qoran, muraayada maxaad ugu soo tegtay, numbarkaa iyo numbarkaa iyo numbarkaasaa kuu qoran. adigaa dhiibay, magacaagibaa dhiibtay, qof kalaa ku faa'iiday. qofka lacagsi, laakiin waxaan kale ha ku mashquulin. daba gabadha aan idinka sheekeynaya Karen Davis waxay ku qaadatay 2 sannadood in laga masaxo maxkamad intaasoo lacaga ay $5 oo qof kale magaciisa uu ku xaday kaarkeedii uu ku dhiibay $5 ayaa waxaa la ganaaxay $8,000. kadibna waa laga masaxay. imika waa nadiif. watan isbuucii dhaweyta ka hadlaysay oranaysa dhibtaas ay qabtay, waxay shaqo la igu diideen, shaqada intaas sannadoodna aan shaqaynayay waxaa la igu diiday waxa weeye qof aan aaminay baa kaarka iga qaatay, kadibna $5 kusoo iibsaday, ku sameeyey video cassette. taasna waa waxyaalaha qaar ee dhibaatada ay leenahay. Soomaaliduna jeclaan lahaa inaanu iska ilaalino. aad baad mahadsantihiin. walaakiin mahad Cabdulla haddaad is leedahay barnaamijka ummadda anfacaya waad qaybin kartaa. runtii waana kaaga mahad celinaya.